haddaanu nahay bahda Elsar Tourism Agency wakaalada dalxiiska gaar ahaan gobolka Sanaag ka shaqeysa maanta waxa noo yimi dhalinyaro ee ka timi Boosaaso runtii markii ay noo yimaadeen bay nala soo xiriireen maanta waxaanu joognaa gaacid baanu joognaa runtii meel qurux badan aad u qurux badan ayaanu iyagana keenay waxaan leenahay dhalinyarada meel kasta ay joogto meel kasta haday ka timaado waxaan leenahay idigu marka timaadaan gobolka Sanaag waxay ugu soo dhaweynaysaa wakaalada dalxiiska hal halka jeceshay meelaha ansaarta haday tahay meelaha taariikhiga haday tahay dhulka quruxda badan ee gobolka Sanaag ugu soo dhaweynaysaa dhulka quruxda leh inaan dhaayaha saaro runtii waxa mahad weyn iska leh kambaniga Elsar Travel and Tourism Agency oo noo fududeysay inaan halkan soo gaarno waa mahadsantiin waxaan soo marnay dhul leh roob barwaaqo iyo jawi degan laga soo bilaabo Qardho ilaa aan hadda joogno Gaacir oo ah deegaan taariikhi ah quruxna badan oo Ilaahay mahadii waxay ahaayeen maalmo qurux badan oo qalbigeyga xasuus weyn ku reebay بسم الله الرحمن الرحيم حبانت فرحات قارية إن بورتي دالو عن دولي ماضو أنا قم مدرك تكمل مغلاي بوقت الصومال كانوا كوق قادين جري إن تاي هالك دالك نوجس الرئيسة إن تاي ميل عن درتهدو جو جيلال أي سنة بدلين نعجار كذا أن كو أركي ضرورة إنك كهوس مرس أنت وما أنت وارك الحمد لله رب العالمين أنا معلنا وأقول لك أرضي iyadoo reelena maanta indhaheegan ku arkay aad baan ugu faraxsanahay intii la sheegay waran inta ka bacdi waxaan mahad gaar u celinayaa teamkii halkan ugu soo dhaweeyay Somtel ee ugu horeeyay walaalkay Saciid iyo walaalkay Cabdirasaaq Soore waa mahadsantiin waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa shirkadii noo fududeysay inaanu maanta inta dhulka leeg aanu dalxiis ku soo marno ee Elsar ilaahay xifdiyo sharaf iyo gobonnimo Elsar bay ku dhantahay waxaan leenahay dadka naga dameeyo waxaweye shirkadda Elsar hamogaanina anaga idinku soo xireena soo booqda daalo